kadib markale dib looga tumay astaanta horyaalka kooxaha Yurub garoomada xalay kulamo ayaa dhacay waxaana foodaystiray naadiyo kala duwan kulamo xiiso leh ayaa habeenkii xalay ahaa la dhacay oo kooxuhu ku loolamaya horyaalka qaaradda Yurub ee UEFA Champions League ay ka ciyaareen iyagoona xalay toole ismutay qaarkood guul iyo dhoolatus ciyaareed ayaa soo bandhigeen barka kalena dhibcaha ayaa laga dhiirtay guryahooda kuwa kale ayaa iyaguna xal ku gaadhay inay barbar galaan aynu ku bilownay kooxda Real Madrid ayaa biyo kulul karkarisay naadiga Celtic iyadoona tustay khibradeeda ciyaareed waxaana ku soo afmeertay 3-1 ay guusha la dalan dooshay kooxda Real Madrid kiista kalena Man City ayaa iyaduna dhabiga u qortay dhigeeda Sevilla iyadoona ardaaqaha kaga dhigtay ciyaar ku ilaatay 4-1 bulshada ayaa iyaduna dubatay naadiga FC Copenhagen iyadoona ku garaaday 3-1 Chelsea habeenkii xalay toolaha waa la qabtay waxaa dhinaceeda dhulka dhigtay isla markaasina idabta bartay naadiga Dynamo Zagreb iyadoona sida biyaha u qulqulisay kulamadii kale ee faraha la iskaga gubtayna waxaa kamid ahaa Benfica 2-0 Maccabi Haifa Paris Saint-Germain 2-1 ayay UEFA ku garaaday RB Salzburg 1-1 ay isla galeen AC Milan sidoo kale RB Leipzig 1-4 ay Shakhtar ku kala baxeen ciyaaruhuna sidaas ayaa habeenkii xalay toolaha wajigii koowaad ee tartanka horyaalka kooxaha Yurub ee guruubyada loo ciyaaray